waxaan rabaa inaan ka hadlo qubxu dimuqraadiya qurunnimada dimuqraadiyaddu meeshay dadka gaarsiisay. dimuqraadiyad ma taqaanaan qaar waxay moodayaan noocan maa shay xurriyada oo bini aadanka xorriyad siinaysa. democratic waa maxay? in ilxukmu ilaa lishacb waay. ilaahayna wuxuu leeyahay in ilxukmu ilaa lilaahi amara an laa tacbuduu ilaa iyaah. albaabkay ku kala leexdeen yani islaam iyo dimuqraadiya waa laba diinood waay. raggu waa fuuli karaa in la sharciyeeyo. meesha arrintu maraysa ka warrama. waa qurun dimuqraadiyaddu. uf baan leenaha dimuqraadiya waa qurun. waa wax ilaahay iyo rasuulkiisu naceen. maxaa xal ah? kitaab allah wa sunnata nabiyi. xal kale ma jiro. afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun. ina anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima. haddii qur'aan la iska diido iyadoo kalaamkii ilaahay la arkayo, nebigii la arkayo, la diido, dimuqraadiyad la qaato ama shuuciyad la qaato, muslima lagu ahaanaa caqiidada jadiidiyada haa. asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu wa rasuuluh. alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah. in sha allah kelimadeenna maanta khamiista ah waxaan filayaa aad baa loo wada sugayey. waxaan rabaa inaan ka hadlo qubxu dimuqraadiya qurunnimada dimuqraadiyaddu meeshay dadka gaarsiisay. dad badanna maanta ay arkeen indhahooda si calaaniyatana ma aha wax laysaga warramayo. wax badan baa nidhi waa kufri, waxaas waa waxun, wax ilaahay nacay waaye. laakiin dheg jalaq looma siin. waxaa loo qaatay dadka qaar dimuqraadiyaddu arrin iska fiican oo normal inay iska tahay. laakiin hadda waan gaarnay yoolkii ay wateen kuwii dimuqraadiyadda soo alifay. kuwii soo alifay marka horeba keensaday barnaamijkoodii meeshuu gaaray waa wada ogtihiin. waxaan rabaa marka inaan maanta isbarbar dhigo 1975 waxaan filayaa in laga joogo 45 sano. xeerkii qoyska dowladdii waagaa jirta ee dejisay ee culimmadii wakhtigaa joogay intay diideen 10 ka mida loo dilay, iyo xeerka mar dhoweed baarlamaanka inta la geeyey netherland laga soo naawilay ayaan isbarbar dhigaynaa 45 beri kadib, 45 sano kadib. dowladdaasu dimuqraadi magac ahaan baa la odhan jiray. waxaa la odhan jiray dowladdii jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya, laakiin waxay ahayd dowlad militariya. nidaamkeedu wuxuu ahaa nidaamkii loo yaqaanay shuuciyadda ama socialism. golihii sare kacaanka waddanka maamulayay iyagaa go-aan ku gaaray. waxaana soo saaray guddoomiyii wakhtigaa xisbiga hogaaminayey 75tii golaha sare hogaaminayey oo generaalkii waddanka xukumaya in gabadha iyo wiilka soomaaliyeed dhaxalkoodu siman yahay. masaladaas waxay ahayd dhaxal. ilaahayna dhaxalka subxaanahu wa tacaala isma la ekaysiin. alla wuxuu yidhi lidakari midlu xadi اlunsayayni. labku wuxuu leeyahay laba dheefood oo laba gabdhood waxay heli lahaayeen hawl wiil baa dhaxalka u leh. ilaahay baa sidaa jideeyey. markaasuu alla weli wuxuu ka sii warramay mar sudus la helayo, mar khumus la helayo rubuc, mar la helayo humun. waa axkaam ilaahay uu dejiyey subxaanahu wa tacaala. ayaa dowladdii si calaaniya toos uga hoos timid 11 January 1975. culimmadii waa istaageen, waa ka qayliyeen. 10 shiikh baa barqa lagu toogtay iskoola bulisiya. dadka wakhtigaa joogay shacabkeenna wax badan umay muuqan khatarta arrintu leedahay, laakiin waxaan filayaa hoog badan oo soomaali ku dhacay taas inay sabab u ahayd. ilaa haddana wax sheega culummadaas iyo qolo u dooda iyo qabiil u qayliya iyo urur u qayliya iyo cid u hadasho weli ma aragteen? maya. 10 shiikh ayaa barqa lagu toogtay iskool bulisiya. hadday hal beela ahaan lahaayeen beeshaas weligeed waa xanaaqsanaan lahayd. 10 nin baana laka dilay, dulmina lakaga dilay ku ahaan lahaayeen. hadday ahaan lahaayeen balaayadan u dooda xuquuqda kufriga iyo dawaaqiidda iyo waxaan kale balaayo degsadaan
ama afkaarta reer galbeedka kuwa u dooda hadday ahaan lahaayeenna UN baan ka dhammaan lahaynba hadda ka hor ayaa 10 wadaad lagu dilay halkaas oo u dooday xuquuqda saasa xuquuqda ilaah iyo shareecada bay u doodeen kama hadlayaan maxaa yeelay waa colkay la dagaalamayeen ninkaan fahamsanayn baa fahamsanayn 45 sano kadib waa masiiba marka wixii lagu halaagsamay oo shareeco ilaah inta laga guuray shuuciyad lagu dhaqmay oo ilaahay burburinta keena dadkii ku baaba'een oo hoog yaala dadkii islaayeen oo qabaa'il la isu burburiyey in haddana markii la isu yimid dib loo yegleelo waxa la yidhaahdo dimuqraadiyad ma taqaanaan qaar waxay moodayaan noocan maa shay xurriyada oo bini aadanka xorriyad siinaysa ma ahana waa xukunka maamulka bini aadamka waxaa lagu wareejinayaa makhluuq waxaa loo diidayaa allah democratic waa maxay in ilxukmu ilaa lishacb waay xukunka waxaa iskale waa erey griiga democratic waa xukunka waxaa iskale shacabka nawaabka iskale dadka la soo doortay ilaahayna wuxuu leeyahay in ilxukmu ilaa lilaahi amara an laa tacbuduu ilaa iyaah albaabkay ku kala leexdeen yani islaam iyo dimuqraatiya waa laba diinood waa saas looma fahamsano laakiin diin walbana usuusheeda iyo qawaaciddeeda ayay wadataa dimuqraadiyaddii lagu faanfaanayeyba waxay keentay in maanta la yidhaahdo wax badan baan nidhi dimuqraadiyaddu waxay bannaynaysaa xataa liwaadkay bannaynaysaa raggu inuu ragga u galmoodo waxay bannaynaysaa wax kastoo ilaahay nacay maya naga taga wadaadaadtiina waxba idinku qunfuulane indhihiinna maxaa hadda ku haysaan wax qarsoon ma aha in baarlamaankii soomaaliya loo geeyey sanadkii horena mar loo geeyey oy diideen haddana mar labaad loo geeyey oy ka qayliyeen maxaa laga qaylinayaa raggu waa fuuli karaa in la sharciyeeyo meesha arrintu maraysa ka warrama maxaa xal ah marka halka haddayba gaadhayba xal kale ma jiro ilaa ilaahay in loo laabto mooye ilaahay waa diiday waxaan manhajkiisa ahayn wax walba qurunkooda aakhirka waad arki shuuciyaddii qurunkeeda waa la arkay meesha ku dambaysay burburkii iyo qabyaaladii waa la arkay iyo hogaamiye kooxeed iyo meeshuuna geeyey dimuqraadiyad beenbeena meeshay marayso aragnay maxaa xal ah kitaab allah wa sunnata nebiyi xal kale ma jiro cid kasta farriintaasaan u faraynaa hadday maamul yihiin madaxtooye iyo yihiin dowlad iyo hadday baarlamaan yihiin hadday shacab yihiin hadday culummo yihiin xal kale ma jiro qaala subxaanahu wa tacaala afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun ma xukun jaahiliyay doonayaan oo kufriya yaa ilaahay ka xukun wanaagsan ciddii xaqa yaqiininaysa meel kale alla wuxuu yidhi inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima inaa anzalna annagaa soo dejinnay ilayka dushaada alkitaaba kitaabka bilxaqi litaxkuma bayna annaas kitaabkuma maxaa loo soo dejiyey bini aadanka in lagu maamulo waa dastuurkii ilaahay ugu talagalay basharka in lagu maamulo ninkaan ku maamulinoo diidana ilaahay amarkiisuu diiday ilaahay buu ku gacan sayray ilaahay buu u bareeray inuu la dagaalamo subxaanahu wa tacaala waxaan cid walba ugu yeeraynaa si uu caqli ku jiro ayagoo dareemaya maanta dhibaatada taagan waddankeenna waa burburay dalkeenna iyo dadkeenna burbur bay ku jiraan colaadaha afeeye iyo faqri iyo weliba faragelin shisheeye badbaadadu xaggee ku jirtaa fafiruu ila allah alla keliya u carara xaggiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay xaggiisa ha loo cararo kitaabka iyo sunnada ha la dhaqan geliyo waxaan bini aadamku qorqortoo dhoodhoobay oo qaarkood kuwa dejiyey aan ognahay inay mar la weydiiyey la yidhi nin dibadaha joogo oo brofesora ka warrama shareecada islaamka soomaaliya haddii lagu maamulo suurtagal maahan bu markaasaa kii kale la weydiiyey ka warran saaxiibkee baan ku raacsanahay buu yidhi I said no soomaaliya in lagu maamulo shareecada islaamka I said no waxaan leeyahay buu yidhi maya maraykanka oo naga caqli badan naga aqoon yahansan
ayaa shareecadan qaadan lahaa subxaan allah maraykanku soo kii ku kufriya maaha ilaah iyo rasuulkiisa miisaanka calmaaniga fiiri marka kii oo inta dastuur kuu soo dejiya isagoo u fadhiya ka war de weligii ma raba kitaab ilaahay shareecada ilaahay in loo laabto nin kastoo caaqila wax kaloo lagu badbaadayo male waa qurun dimuquraadiyaddu uf baan leenaha dimuquraadiya waa qurun waa wax ilaahay iyo rasuulkiisu naceen waa wax xataa odayaashii awalba hawsha wata dhihi jiray waa dimuquraadiyad ay yidhaahdeen qurun waaye iyagii baaba yidhiba xaqiiq waaye qurun weeye wasakh weeye ilaahay aan u laabanno subxaanahu wa tacaala badbaada meel kale kuma jirto ilaa kitaab allahi wa sunnata nabiyihi calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga in loo laabto mooye wax kale kuma jiraan maya xeerka tolka maya dasaatiir bini aadan dejiyey maya hawadeenna iyo ra'yigeenna aan ka laabanno ilaahay u laabanno badbaado meel kale yaanan ka raadinin cid walba u istaag ilaahay diinkiisa adigu inaad dhaqan geliso inaadan wax kala oggolaan ilaa kitaab allahi mooye haddii kale waxaa dhacaya sida muuqata waxaa dhacaya sanadkii hore waa la isku dayey waxaan qurunkaa in la hirgeliyo waxaa diiday baarlamaankii wakhtigaa joogay golihii wasiiraduna waa dhaqan geliyeen waa wada garanaysaan waa ansixiyeen ee wakhtigaa joogay haddana waa la keenay mar labaad baa yur la yidhi soo maaha marka odayaashaan meesha ka leexdaan mar saddexaad yaa yur dhahay weligeed hawsha waa soconaysaa qandaraas laa wata netherland baa laga soo naawilay hadda waxaan la sheegay waa baatil waa arrin annagina aan noo cuntamin caqlan wa naqlan yaad matasha haddaad waxaasoo kale ku dhaqmayso maya waa cidna awal marka waxaan leenaha marka horeba taasu ma timaadeen haddii dastuurku yahay alqur'aan wa sunnata nabiyi calayhi isalaatu wasalaam kuma hawooteen bini aadan ama ragaada ama dumar waxaasoo kale inuu babliga la hor yimaado oo liwaad iyo zino ha la sharciyeeyo u doodo ma iman lahayn haddii marka horeba laga gaashaantoo kitaabka ilaahay manhaj laga dhigto waxaan ugu yeeraynaa dadoo dhan ilaahay baa wuxuu yidhi ittabicuu axsana maa unsila ilaykum min rabbikum raaca kan wanaagsan ee xagga rabbigii laga soo dejiyey qur'aan raaca waxaa soo baxay marka haddii qur'aan la iska diido iyadoo kalaamkii ilaahay la arkayo nebigii la arkayo la diido dimuqraadiyad la qaato ama shuuciyad la qaato muslima lagu ahaanaa caqiidada jadiidiyada haa kufrun duuna kufr marka loo bandhigo caqiidat lmurji'a jamaal cabdinaasir muslim generaalka soomaaliya maamulaya muslim maadaama uu shareeco degsaday ee ninkii odayga la odhan jiray xabiib burqiba ee bisha ramadaan iyadoo lagu jiro dadkii yidhi hal afuro muslim maxaa yeelay kufrun duuna kufrin alaysa yaquul laa ilaha ila allah waana kidib waa kidib lagu beenaaro abuuranaya kitaabka ilaahay xaakimka muslimkaa laba u qaybsamaa xaakim oo dhan baa laba u qaybsamaa muslim jaa'ir ah ka cabdimalik bin marwan xijaaj bin yuusuf abu muslim alkharasaaniy waa jaa'iriin waana muslimiin baa loo qirsanya iyo xaakim taaqiya oo shareecada ilaahay tuuray manhaj kale ku dhaqmay ama gaalaha ka soo qaato ama maskaxdiisa ha ka qore wax bini aadan maskaxdiisa laga keenay ilaahay ma ogola ra'yi bini aadam ummad in lagu dhaqo alla waa diiday ninka alla rumeeyow ilaahay baa kaa raba inaad taacada isaga u khaalis yeesho liqowlihi tacaala ittabicuu maxaa waaye raaca kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga manhaj ka dhigta isaga caqiide ka qaata isaga hoggaan iyo dastuur ka dhigta intaasaan dadkao dhan ba dareensiinaynaa hal qisaan idin xasuusinayaa marka oon ugu talagalay murji'ada iyo saaxiibadoo inaan dareensiiyo in xaakimku taaqi noqon karo isagoo islaam sheeganaya laakiin cilmi bay u leeyihiine ummadda ku siran baan rabaa inaad dareemaan waxaa qabsaday waddanka ciraaq sanadkii 7 ee hijrada niman la odhan jiray tataar waa wada garanaysaan macruuf tataarku waa mongoliyankii ka soo guuray ka soo duulay bariga asia oo qabsada china oo dhan qayb raashiya ka mida waddamadii khuraasaan la isku odhan jiray khuraasaan yani khawaarizm ee bariga caalam islaam dhan soo qabsaday dagaalyahan cawaan oo kufaaray ahaayeen baqdaad bay qabsadeen amiirkii muslimiinta ay dileen kutubtiiba waxay ku daadiyeen webiga furaat kutubtii
dhoobneed oo dhan muddo markay joogeen oo magaalada dad badan ku xasuuqeen sida la ogyahay oo culimmada kutubta ka qoreen xasuuq ka weyn caalam alislaam ma soo marin baa layidhi 3 malyan baa lagu qiyaasay inay baqdaad ku noolayd 2 malyan camal baa la dilaa la yidhahdaa 40 cisho amar wuxuu ku bixiyey hoolaako waa hogaamiyihii tataarka 40kaa cisho ha ka tegina dhagax saaran xajaran calaa xajar ama qof nool ama wax noolba bisad iyo ey iyo qof waxay arkaanba waa dilayeen ilaa waddooyinkii dhig qulqulay tataarkii ama mongoliyankii nimankii saas ahaa islaamkii bay fiiriyeen lawaa diin xaqa way ka fikireen markii dambe waxay yidhahdeen annaguna muslimiin baana nashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah salaaddii bay bilaabeen waxay ka tageen waxay caabudayeen arwaaxdii iyo asnaamtii ay caabudayeen khaasaan nin la yidhahdo hogaamiye u noqdeen markaas dambe oo islaamka sheeganayaan markaasay isu diyaariyeen shaam inay isku soo duulaan iyagoo muslimiin u nasab sheegta wax walba waa oggolaadeen ilaa maxay shareecada mooye waxay yidhahdeen shareecadii awowgeen kama tegi karna buuggii la odhan jiray alyaasiqa uu dejiyey jinkis khaan ninka meesha qabsaday hulaako awowgii wey shareecadan kama tegi karno inta kale islaamkay ka qaateen salaad soon zako shahaadatayn aslaamna burburiyo ilaahay khayrkii inaan loo yeeran islaamkay ka qaateen nimankii sidaa ahaa markii dambe maxaa dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa fiiri culimmadii muslimiinta ayaa waxay yidhaahdeen ibnu taymiya dadkana muslimiin maahan buu yidhi ha ku sirmina kuwani muslimiin maaha markaasa wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen madadaa shahaadanaya oo tukanaya subxaana allah wuxuu yidhi maya nin diiday ilaahay inuu u hoggaansamo oo taacada alla siiyo oo manhajka ilaahay ku dhaqmo meeshuu qabsado qur'aan buu ka saarayaa yaasiq buu geynaya bilmatal wuxuu qabsaday dimashq shareeca ka jirta muslimiin baa joogay qur'aankii buu ka saaraya buuggiisuu keenaya ninka ama ilaahay buu u dagaalamaya fii sabiili illah mise waa fii sabiili taaquut waa fii sabiili taaquut macruuf dadkii ka shakiyey wuu qanciyey raximah اllahu tacaala ibnu taymiya qisada akhriya ninkii rabana si gaar wuxuu akhrin karaa markuu fasirayo ibnu kathiir aayadda suuraة اlmaa'ida afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun ma xukun jaahiliya ay doonayaan yaa ilaahay ka xukun wanaagsan ciddii xaqa yaqiininaysa sida uu taariikhda uga sheekeynaya ibnu kathiir yaad arki doontaa ilaa uu aakhirka kusoo gebagabeeyo xaakimku waa inuu ilaahay kitaabkiisa ku maamulaa dadka hadduusan ku maamulin kaafir billahi alcadiim markaasay ishkaalkii waxaa ka baxay culimmadii waxay garteen tataarku inaanay muslimiin ahayn maadaama ay diidan yihiin taxkiim kitaab allahi sharca allah ilaahay sharcigiisa inay xukun tagaan bay diidan yihiin hadday murji'adan wakhtigaa joogi lahaayeen waxay dhaheen ibnu taymiya takfiiri baa taaday fiika khaslatan min alkhaarijiya maxaa dhacay ashahaadanayaan waa tukanayaan yucdar biljahl shirki kufra duuna kufr kamaa qaala ibnu cabbaas halkaasay la aadi lahaayeen nimankaas wax walba waa ka tageen waa oggolaadeen ilaa shareecada mooye nin qabri caabuday shareecana diiday meyd ku tawasulay kitaab alleh xagga iska geeyey wax kale ku dhaqmay ka warrama muslim buu ahaanayaa miya isagu waa maadaama uu yahay soomaali saas miya hadduu carab yahay laakiin baqdaadi ama tataar yahay hoostaan ka carriiqayna warkaas war jira ma aha ilaahay addoommadiisu waa u siman yihiin cid kastoo kitaabka alla diidda oo ku dhaqmi weydaa xukunkii ilaahay rasuulkiisa siiyeen ayuu qaadanaya amiir jaa'irana laguma khaldi karo taaquudka shareeco kala degsaday waxaan cid walba ugu yeeraynaa marka si ay ku jirto xataa yacni inay ayaga laftigeeda garawsadeen in waxaan wax xun yahay qurunka dimuqraadiyadda ahayd iyo waxaan bini aadamku dejiyey ilaahay in loo soo laabto subxaanahu wa tacaala dalkan badbaado haddii loo rabo rabbigii ha loo celiyo dadkan badbaado haddii loo rabo rabbigii ha loo celiyo subxaanahu wa tacaala ninkii badbaado wanaag u rabo geeska afrika iyo soomaali ilaahay kitaabkiisa ku dhaqan shareecada nebiga ku dhaqan wax kale ha yeelin qaala tacaala aayaddaana kusoo gebagabaynaya falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ثuma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima aayaddu waa muxkama mansuukh maahan mutashaabihina maahan rabbigaa baan ku dhaartay maxamedow iimaan ma yeelanayaan ilaa ay kaaga xaakim yeeshaan adiga wax walba oo dhexdooda ka dhaca wax yar iyo wax weynba
weliba naftooda waa inaanay ka helin xarajan inay dhibsanayaan mimaa qadayta go'aankaaga wayusallimuu tasliimaa hoggaansamaan hoggaansamid ilaahuna hoggaami ilaahu waddada xaqaa nugu hoggaami ilaahu muslimiin kuu toosan naga yeel allahuma ahdinaa siraataka almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa ilaahu dalkan iyo dadkaanba hanuuni ilaahu ummaddeenna lunsan hanuuni ilaahu a'immata adalaal ka leexi ilaahu a'immata alhudaa hordhig ilaahu mid kastoo baadiya ama hoggaan ha hayo ama yuusan hayne ilaahu soo hanuuni wa anta alcaliimu alxakiim ilaahu na badbaadi ilaahu adduun iyo aakhiraba na badbaadi ilaahu sharcigaaga iyo diintaada nagu hanuuni ilaahu kuwa xariggaaga ku dhega naga yeel yaa da aljalaali waalikraam wa yaa arxama arraaximiin wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam